بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد maanta oo taariikh u tahay 18 bishii afraad 2021 waxa meeshan shir ku yeeshay guddiga dhaqanka xawaadle ee banaadir guddigiisa fulinta oo geesayga taagan ayaa shir isugu yimid waxay rabaan inay ku beeniyaan kilib oo duubay beledweyne online oo ku been abuurayay dhaqanka beelaha xawaadle ee muqdisho waxay ka soo horjeesteen shirweynaha wiye oo la qabana ayaan rabnaa inaan ku beeniyo anigoo afkooda ku hadlaa afayeenkii guddiga ah cilmi takar bare waxaan idin sheegay intii arkaysa iyo intii maqlaysaba warkaas inuu been abuur yahay inaan waxba ka jirin inaan guddiga dhaqanka xawaadle diidin inuusan shir hawiye diidin wixii fiican oo hawiye isku raacana ay ku raacayaan wixii xunan hawiye diidana ay diidayaan saasay ku midaysan yihiin dhaqanka xawaadle uma samaysna wax batiri la gashado oo la isaga hadlo ma aha hawiye waa nahay waa ka mid nahay wixii wanaagsan oo hawiye qaatana waa la qaadanaynaa wixii aan fiicnayna ku raacimayno laakiin shir hawiye oo dhacaa ama hore u dhacay oo xawaadle diiday oo ka soo horjeestay حبا كما جران بين أبور واي بلدوين أونلاين وبين أبور وحنا قسمين وحنا الربا سوشيال ميديا إن بين لقشيق وإذا كوانينا دل يردين هيران أو سميسي مقالة بلدوين أونلاين قاسلة كتنازل بينها أقاون وأكسو لقيسان قدتك كداية حبا كما جران الله نوركاس وبيننا هورو صو لقان haddana waxaan ku wareeji doonaa oo iyaga dameynaa gudoomiyahay guddiga oo garabkayga taagan wararka beledweyne online soo dhigay wax ka jira oo ilaahay abuurtay ma jiraan waana uga digaynaa mar dambe inay been abuurka inta la eg ay nagu sameeyaan waxa la rabaa saxaafaddu waxa ay soo gudbinayso oo bulshooyinka Soomaaliyeed soo gudbinayso wax xaqiiqda ku saleysan inay yihiin inaanay ayagu waxa ay rabaan aan iska soo qorin ummadana aanan maartay muxuu aan lagu jahwareerin inta ka bacdi hawiye waa dad fara badan oo ilaahay u badiyay talada hawiyana xawaadle dhaxda uga jira wixii wanaagsan oo hawiye u qaatana xawaadle waxba ka qaadan doona insha Allah hadii ilaahay idmo waana la isku imaan doona waana la wadali doona aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh